Bismillahi Rahmani Rahiim. Alxamdulillahi Rabbil Caalamiin. Wasala Allahu calaa Sayyidina Muxamed wacala aalihi wasaxbihi wasalam. Dhammaan ardayda Soomaaliyeed meel walba aad joogtaan kusoo dhawaada kaalinka waxbarasho ee Ibra Solution. Maanta waxaan duubaynaa hadduu Ilaahay raalli ka noqdo imtixaanka sideedaadka fasalka maadada tarbiyada. Insha Allah qaybta ugu horeyso ajib can jamiici al-as'ila al-aatiyah, ka jawaab dhammaan su'aalaha soo socdo. Qaybta koowaad waa sax iyo qalad, aan iraahday waa gobogeli jawaabta saxda ah. Al-Muzammil macnaha Al-Muzammil waxaa lala jeedaa jawaabta waa jiin. Al-Mutalaffifu bithiyaabihi midka dharkiisa isu duuduubay. Su'aasha labaad an-nuunu saakina hiya allatii jawaabteeda waxaa waaye laa xarakata lahaa oo ah alif. Su'aasha saddexaad al-idhaar al-xalaqi an yaqaca bacda jawaabteeda waxaa waaye ba waaye oo ah an-nuunu saakina, waa inuu dhacaa nuunu saakinaha kadib. min xuruufi aqsa al-xalqi xuruufta waxaa ka mid ah oo aqsa xalqa laga soo bixiyo. Jawaabteeda waxaa waaye al-hamzatu wal-haa, alifka iyo haada. Su'aasha shanaad salaatu leyli afdalu min waxay ka fadli badan tahay. Jawaabteeda waxaa waaye ba oo ah salaatu nahaar. Al-muslimu yastaciinu calaa qadaa'i xawaa'ijihi qofka muslimka xawaa'ijiisa wuxuu gutaa. Jawaabteeda waxaa waaye bil-kitmaani oo ah jiin. Al-kitmaan jiin. Su'aasha toddobaad wa annahu lammaa qaama Cabdullaahi yadcuuhu calaa dawi al-aayah kalimatu Cabdullaahi hunaa calashaan haddii aayadan la fiiriyo kalimatu Cabdullaahi waxaa loola jeedaa qofkaasi waxaa waaye alif waaye oo ah Muxammad sallallahu alayhi wasallam, Nabi Maxamed waaye. Markii oo jiniyaasha oo calashaan ay isfulfulayeen oo ay dhageysanayeen nabiga hadalkiisa waa micnaha. Marka qofka laga sheekeynayo wuxuu ahaa Nabi Maxamed ahaa oo lambar alif oo ah Muxammad sallallahu alayhi wasallam. إذا اجتمع المدغم مع المدغم فيه في كلمة واحدة للنون الساكنة وجب. jawaabteeda waxaa waaye su'aasha toddobaad amaroona su'aasha sideedaad amaroona. Jawaabteeda waxaa waaye jiin oo ah al-idhaar muujin waajibayso. Su'aasha sagaalaad إذا غام الراء واللام يدعى غير غنة لأنه sababta maxaa yeelay oo aan loogu magacaabaynin gunno waxaa waaye idgham oo kaamil ah waa micnaha. Jawaabta waxay noqonaysaa number ba oo ah kaamil. Su'aasha tobanaad sumiyat suuratul jinni bihada al-ismi lidikrihaa waaye. Jawaabta waxay noqonaysaa alif oo ah fii awwalihaa lagu sheegay magaca jinni. Asiraab huwa jisrun adaqu min ash-shicrati waaye oo ah ba wuxuu ka jilcan yahay tinta. Su'aasha 12 xasara ibnu qayyim anwaacul asdiqaa wuxuu u qaybiyey ibnu qayyim noocyada saaxiibada. Jawaabta waxay noqonaysaa alif oo ah 3. Su'aasha 13 waa bogsiinina hadduu alla idmo. yusannifu الnaas fi الxisaab xasba acmaalihim oo ah da. Su'aasha 14 min asmaa'i al-yawmi al-aakhir waxaa ka mid ah
su'aasha number jin oo ah addiin ka mid ah. Alxikmatu min majii'i yawmi alaakhira waxaa waaye number alif oo ah jazaa'ul muxsiniina bil ixsaan. Xikmada waa sidaas oo ku jirto imaanshaha aakhiro waa in la abaalmariyo dadka wanaagga sameeyey. 11 yuctabaru alxukmu bigayri maa anzala Allah waxaa lagu tiriyaa inuu yahay kufran jin bawaaxan waaye. Bawaaxan oo ah number jin. Tantahi alxayaat albarzaqiyati waxay ku dhamaataa binafkhi fi suur oo ah ba'wa in la afuufo suurka. qaala allahu tacaala afaxasibtum annamaa khalaqnaakum cabathan wa annakum ilaynaa laa turjacuun. calaa dawi hadihi alaaya man qaala ana albacthu laysa bixaqin fahuwa qofkii yiraahdo calashaan bacthiga ama isoo bixinta wax jira ma ahan qofkii dhaho qofkaasi waxaa waaye munkirun waa macnaa qof inkiraya bacthiga oo ah number ba waaye. Su'aasha 18 tantahi alxayaat albarzaqiya may gadaal u laaban 19 amrin. 19 waxaa waaye anna liliimaan thamaraatun jaliilatun lima fiihi min aathaari alxamiidati tacuudu calaa waxay ku laabanaysaa iimaanka wuxuu leeyahay la dhahay faa'iidooyin ayuu leeyahay. faa'iidooyinkaasna waxay u laabanayaan calashaan alfardu walmujtamac waa meedha oo ah number deel dhammaantooda faa'iido way ka helayaan. بالنسبة للإنسان الفترة التي يقضيها بين خروجه من الدنيا ودخوله في الآخرة يسمى وحالك مقعابة البرزخ جين أو البرزخ. قال صلى الله عليه وسلم عبد الله كسر قلم زميله وهو نائم ولم يضربه المعلم لأنه معيالي بأواي نائم وأها قفرد. قالت يزور أقواله وأقاربه وهذا علامة وحي علامتها جين أو على قوة إيمان. روى حديث المسلم يصل وحاوري حديث كان هو نمبر بأواي عبد الله عبد الرحمن بن عوف. إذا مات الإنسان عرض عليه مقعده waxaa loo soo bandhigaa qofka hadduu dhinto maqcadkiisa ama makaanu gelitaankiisa waxaa loo soo bandhigaa alif oo ah bilghadaa'i walcashiy ama alghadaati walcashiya lasoo bandhigaa. 25 asilatu min akrami akhlaaq jin oo ah addunya walaakhira. aljaliisu suu yashmilu calaa wuxuu kulminayaa alkaafir walmunaafiq oo ah xarafka jin. Su'aasha kale oo 27 laa yu'minu axadukum waxaa loola jeedaa cibaaradaasi waxaa raacsan oo calashan oo loola jeedaa cibaaradaasi laa yu'minu iimaanan kaamil ba'wa. Su'aasha 28 silatu raximi tusiidu almutawaasiliin waxay u kordhisaa alif waaye oo ah cizan. النبي صلى الله عليه وسلم يروى قصة في التسامح والتراحم wuxuu ku wariyey في البيع والشراء والقضاء oo ah number deel. Su'aasha 30 sumiya
الضراء بهذا الاسم لأنه يجمع على وحكولانسانيا يجمع عليه ألف أو ثلاثة نعم واي. أسلم الزبير وهو ابن باء 8 سنين. خرج الرسول عليه الصلاة والسلام لفتح مكة بجيش قومه جين أو 10,000. ولد إمام مسلم في ديل أو نيسابور. كان خلق الرسول صلى الله عليه وسلم جين أو القرآن. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يهتم بقضاء ألف أو المسلمين. اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيب بن زيد ليبلغ الرسالة وأدورتي إنه قرسي رسالة مفرينتا بقى مسيلمة الكذاب. سؤاشا صدن تضوات. الإمام مسلم ارتحل إلى بلاد الشام لأنه ديل يستفيدها. يقصد الحاج إلى بيت الله الحرام أداء العبادة أداء الإفواء. صالحت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تعرض للمسلمين وقبيلة خزاعة. ثم قتلت قريش رجلا من خزاعة ديل أو نقضت الصلح. كان فتح مكة إيدانا باء لانتشار الدين الإسلام. قيب طلبات اسكو أدادي الزكاة لغة وحاكو آدن النماء والزيادة. أي المؤلفة قلوبهم هم وحالق وذا المؤلفة قلوبهم وحالق وذا الذين دخلوا في الإسلام حديثا. أكو آدن عدد أشواط في السعي بين الصفا والمروة وحاواي 7 ويتضوى. عروض التجارة وهو الأشياء المعددة وأشياء اللو دياري للبيع والشراء. قال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله. على ضوء هذا الحديث الصوم هو الركن الرابع وسوقلا ركن أفراد. سمي العاملون عليها لأنهم يقومون وحي سمينيان بجمع الزكاة. كده يسألون من الأشياء التي لا تصلح للتدقير ولا زكاة فيها. أشياء ذا سوحواي أشياء ذا أو معناها أو أن كتسمينين أو أن لغزكينين والفواكه ومعناه. تبدأ الأشواط 7 وحي كبلاوانيان من صفا على بلاو بورت صفا. تجب الزكاة في أجناس 3 آخرا لكن 8 على غربة 6. ماشان 3 8 على غربة. للتفريق بين المسكين والفقير يكون المسكين وحنقنا من له كسب. وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تضيعت كشيء لبداك صاحبة هذا إن شاء الله. وادكم أصنطحي لغيسيغاغا يو فيرسشة هذا يبوغشة أصوب بوغتي جنال كينا.